2020 qarniga 21aad xilli adduunku noqday tuulo yar oo kale horumarna laga gaadhay tiirarkii bani'aadamku u baahnaa si uu u noolaado noloshiisuna u samaato sida caafimaadka iyo cilmiyada kala duwan ikhtiraacada waxtarka leh sanadba sanadka ka dambeeya daaya bilba bisha ka dambaysa ayaa iska soo daba dhacayaan waxa la oran karaa horumarka uu bani'aadamku ka gaadhay dhinacyo badan oo nolosha ka mid ah hore ifka uma aysan soo marin waa inta la og yahay waxaa tusaale kaaga filan horumarka laga gaadhay teknolojiyadda iyo weliba hubka oo kaliya taa ma malaynaysaa haddaba inay jiraan dadyaw ka xidhan waxaas oo ikhtirac ah kuna nool nolol basiid ah oo aan lahayn teknolojiyad casri ah haba yaraatee oo isku daweeyay dawooyin dhaqameed kuna dagaal gala waran leeb iyo qaanso ama budhadh iyo faashash oo badankoodu ka samaysan yihiin alwaax oo xitaa aanu si hagaagsan u gaadhin isticmaalka iyo ka faa'iidaysiga birtu ama aanay weligoodba arag wax bir la yidhaahdo haddaba waxaa jira bulshooyin ilaa haatan ku nool adduunka oo aan bashar kale oo ka horumarsan weligood indhahooda saarin bulshooyinkani waa qaar doortay inay sidaa u noolaadaan baqasho ay ka baqayaan in lasoo dhex galo iyo asbaabo iyaga u gaar ah oo kale daraaddood badankoodu waxa ay ku nool yihiin kaymo iyo jasiirado aan hore bani'aadamka kale ugu tegin tusaale ahaan jasiiradda north sentinel oo ka tirsan jasiirado isu dhow oo ay degaan dad laydhaa andamanis kana tirsan xad ahaan waddanka hindiya waxaa ku nool dad lagu magac dhabay magaca jasiiradda iyadoo ay inaan laga hayn wax macluumaad ah dadkani kaligood ayay nool yihiin umana ogolaadaan shisheeyuhu inay dhexdooda imaadaan tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin inta u dhaxaysa 50 ilaa 200 oo ruux waxaa la isku dayay dhowr jeer in lala sameeyo xidhiidh hase ahaatee weli laguma guulaysan sababta ugu weynina waa iyaga oo la dirira cidda ay u gartaan inay duulaan ku yihiin dhulkooda waxaa ugu dambeysay November 2018 oo halkaas ay ku dileen baadari caddaan ah oo sida la sheegay rabay inuu faafiyo diintiisa kiristaanka ah jasiiradaha Andamanka ee ay ka tirsan tahay jasiiradan qowmiyadani ku nooshahay waxaa ab ogaa ku ahaa dadyaw isku dhaqan iyo muuqaal dhow oo ka duwan dadka kale ee koonfur bari Aasiya isir ahaan hidde-side ahaan iyo luqad ahaanba dadkani waxa ay leeyihiin duwaaq madow umana eka muuqaalka inta badan lagu soo sooco dadka Aashiyaanka ah jasiiradan iyo Guinea waxaa ku nool dadyaw badan oo ilaa maanta aan xidhiidh la sameyn dunida kale ama dadyaw kale oo kaligood nool dadkani waxa ay ku nool yihiin nolol ku tiirsan qaraabsi iyo ugaadhsi waxaa la sheegaa in 44 qowmiyadood ay ku nool yihiin jasiiradan kali noolaanshaha dadkan waxaa sababteeda qayb ka ah in dhulka dadkani ku nool yihiin ay tahay dhul joog dheer oo kaymano u badan taas oo dib ka dhigaysa in si fudud loogu tago tusaale ahaan dadka lagu magacaabo koroway oo ku nool dhulka joogiisu sareeya ee jasiiradan waa dad aan weli xidhiidh la sameyn waxaa la sheegaa inay dilaan dadka ay u gartaan inay shisheeye yihiin waa qabiilada laga warhayo inay bani'aadamka hilibkiisa cunaan dadkan waxaa la sheegaa inay ku nool yihiin geedaha dushooda oo ay buulal ka samaysteen sidoo kale dadyawga lagu magacaabo biyami oo iyana ku nool kaymaha joogoodu sareeya waxa ay cunaan hilibka bini'aadamka oo nin caddaan ah oo nasiib u helay inuu soo arko ayaa waxa uu ka waramay in sida nin qabiilka ka tirsan markii loo sheegay inuu hayo xanuunkii uu dhiman lahaa uu codsaday in la kariyo xaaskiisa iyo saaxiibteed oo la cuno taasoo ay qabiilkiisina ku raaceen isagoo ka waramaya ayaa waxa uu sheegay inuu u qaadan waayey waxa dhacay hase ahaatee waxa uu yidhi inay iyaga u tahay wax iska caadi ah oo nolol maalmeedkooda ka mid ah cajiib dadyawga aan xiriirka weli la sameyn waxa kale oo laga helaa qaaradda Ameerikada koonfureed waliba keenta aad ku baaxadda weyn ee Amazonka waxa la sheegaa in boqolka qowmiyadood ee haatan la og yahay inaan weli xiriir la sameyn ay kala bar ku nool yihiin qaaradan dadyawga la yiraahdo korubo waxay ku nool yihiin waddanka Brazil waa mid ka mid ah qabiilada ilaa hadda kaligood jecel inay noolaadaan waxa lagu qiyaasaa inay yihiin ilaa 180 ruux waxa ay hub ahaan u isticmaalaan ul dhumuc ballaaran oo dheer taasoo ay ku dagaalamaan kuna ugaarsadaan xayawaanada ay ka midka yihiin daanyeerka iyo doofaarku dadyawga aan weli lala xidhiidhin ee ku nool kayntani waxa ay khatar ugu jiraan shirkado waaweyn oo ganacsi la damacsan deegaanka dadyawgani degan yihiin sida inay dhirta halkaa ku beeran damcaan inay ka gooyaan si loogu isticmaalo alwaax ahaan ama ujeedo kaleba tan waxa ay in dawladaha qaarkood sida Bolivia iyo Colombia inay soo dejiyaan xeerar lagu ilaalinayo xuquuqda dadkan iyo doonistooda ay doonayaan inay kaligood noolaadaan waxa kale oo dadyawgani khatar ugu jiraan cudurro aanay hore u arag oo badanaa waxa dhacda in marka dadkan ay xidhiidh la sameeyaan dadyaw magaalo joog ah ay ka qaadaan fayrasyo aanay difaacooda jireed weli la qabsan taasina waxa ay sababtaa in tiro badan oo dadkani ka mid ahi ay u dhintaan xanuuno inaga basiid noo ah oo la daweyn karo sida hablabasta TB-da iyo fluga ama durayga sida daraadeed waxa la kantaroola xiriirka dadkan la sameynayo iyadoo ay sida tahay haddana waxa muuqata in marba marka ka dambaysa ay soo yaraanayaan qowmiyadahan xiriirka la sameyni iyagoo qaar badan oo qowmiyadahaas ka mid ah ay door bidaan inay dunida kale la jaan qaadaan kolka ay si wacan uga dhigtaan faa'iidooyinka iyo horumarada bani'aadamka kala gaadhay gunaanadkii fiidiyowga ayaynu soo gaadhnay fiidiyowgani waxa uu ahaa fiidiyow aad u gaaban oo aan isku daynay inaan macluumaad fara badan idiin soo gudbino waxaanu rajaynaynaa inaad ka
ka faa'iideen macluumaadka maanta waa waxbarad oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo ismaqal dambe.